السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wadnaa wali romaankii ayaan wadnaa marka insha Allah waxaan rabay inaan ku bilaabo rumaanka casiirka rumaanka amba sharaabka rumaanka ayaan ka hadalno insha Allah faa'iidada uu leeyahay iyo timirta lagu daraayo timirta saddex hal baad ku darsan kartaa xabad hadaad doonaysid inaad samaysatid xabad rumaana hadaad rabtid inaad samaysid saddex hal oo timir aad iskaga darsan haddii kolley sharaab ahaan waxaan u rabnaa inaan sameyno insha Allah iyo aragti kale cusub ayaan idin tusi doonaa insha Allah kusoo dhawaada channelka aniga iloobina subscribe-ka iyo like-ga iyo comment-ka insha Allah si looga faa'iideysto iyo su'aalaha haddaad doontaad soo weydiisin rumaanka waan kasoo hadalnay faa'iidada uu leeyahay oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado qur'aana kolley cajalada ka horeysay ayaan kaga hadlay qur'aankii iyo axaadiistiiba marka waxa weeyaan sida xadiiska oo kale haddaa idyar xasuusiyo waxaan yidhaahday ahayd aan sheegay inuu qofka qalbigiisa daahirinayo amba waxa weeyaan rumaanka waan ka hadlay oo waxa weeyaan cajaladii hore rumaanku waa kan kani aadka u casi waa ka macaan insha Allah kani waa iska dhexdhexaad marka insha Allah wax cusub oo wanaagsan amba malab ayaan rabaa oo rajeynaya inaan ka sameeyo malabka ayaan rabaa inaan ka sameeyo una dulqaata halkan waxba cunta ku yara karsamaysay marka waxaan rabay inaan maxaa la yiraahdaa ka hadlo rumaanka intii nooc ahaa nooc kii yar qaraaraay oo kala ka maqan almurro kaasi laakiin kii macaan yahay aad buu cas yahay aad ku cas waa ka ugu biyo badan ugu wanaagsan kan waa iska dhexdhexaad insha Allah waan furaynaa waanu arki doonaa insha Allah faa'iido leh marka axaadiisna waan ka soo hadlay qur'aankana waan ku soo sheegay iyo axaadiistii iyo qur'aankaba marka maxaan ilaahay rumaanka waa midhaha jannada labadu waa midhaha jannada qofku hadduu doonayo ha cuno xabadda waxaa dhici karta xabad midhaha jannada inay ku jirto marka waxa weeyaan taas oo 40 cisho qofka qalbigiisa waswaaska iyo wixii qalbiga xumaan ku jiro ee dhexda qof dadka bilaadanka ku jiro dhan inay daahirinayso amba ay nadiifinayso marka inaan ka faa'iideysano ayaan rabay rumaanka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay sida beerka oo kale oon rabo maanta inaan xogeer ka hadlo beerka beeryarada amba maxaa la dhahaa beerka agtiisa amba hoostiisa ayuu ku yaalaa waxa weeyaan qofku haddii waxa weeyaan uskag buu yeeshaa amba bacteria gala weeyaan marka waxa weeyaan kaas ayuu safaynayaa casiirul maxaa la rumaan marka sharaabka rumaankaasi qofka uu nadiifinayaa beeryarada waxa weeyaan uskag ku jirto beeryarada haddii ay ku xanuunayso xanuuno badan ayaa dadka laga dareemaa qofka oo indhihiisu huruud noqdo qofka oo gacmuhu aad u garaacaan amba lafuhu garaacaan ayaa xanuunadaas laga dareemaa amba qofka oo waxay calooshiisu aad u weynaato waxyaalo badan ayuu dareemo ayuu qof yeeshaa maxaa la yiraahdaa gacmaha xanuuna lafaha xanuunaya baabacooyinka xanuuna marka qofku hadduu maaragtay waxaas uu dareemo waa beerka xanuunkiisa marka insha Allah rumaanka ayaa ka dawa rumaanku marka faa'iidooyin badan buu leeyahay marka insha Allah waad igu soo qori doontiin af Soomaali aniga beeryarada ama beer taxliil ayaan ku sheegaya laakiin waxa weeyaan carabiga waxa la yiraahdaa daxaal Englishkana spleen baa la yiraahdaa marka insha Allah bal af Soomaaliga hadii beeryarada ayna ahayn hal ii soo sheego insha Allah aan kala faa'iideysano dhamaanteen waxyaalo badan oo kale rumaanku ka dawayahay rumaanku waxa weeyaan cunuhu hadduu ku xanuunayo codku hadduu kaa xun yahay oo waxa weeyaan codkaagu weyn yahay uu nadiifinayaa hunguriga amba inta cunuhu dhan ayuu daahirinayaa amba uu nadiifinayaa labada waxa loosateenka amba labada qanjir uu bogsiinayaa cuna xanuun hadduu kugu dhaco marka faa'iidooyin badan ayuu rumaanku leeyahay waxaa kaloo rumaanku nadiifiyaa caloosha haddii ay ku xanuunayso meelaha uu fadhiiso dirxigu amba sida masaska oo kale caloosha hadaad ku leedahay waa kaa kilin garaynaya waana kaa nadiifinaya subxaanallah waa mucjiso cajiiba weeyaan marka insha Allah ha laga faa'iideysto rumaanka waxaa kaloo faa'iido u leeyahay sidaan idin soo sheegay codka ayuu hagaajinayaa soodka qofka waa hagaajinayaa rumaanku waxaa kaloo hagaajinayaa laabta haday ku xanuunayso sanbabadu hadduu ku xanuunayo oo laabtu markay ku garaacayso oo kale
waa ka dawo rumaanku. marka insha allah laga faa'iideysto rumaankaasi. waxa weeyaan hargab xun hadduu ku hayo oo aad hargabka ku hayo kaana waa ka dawo, cunuhu furaya amba cunuhu hagaajinaya. marka insha allah laga faa'iideysto. waxaa kale oo faa'iido u leeyahay haddii uu subag jirkaaga ku jiro kale uu clean garanaya amba uu nadiifinaya jirkaaga, sida beerka oo kale subag uu ka saaraya. marka in laga faa'iideysto ayaa wanaagsan. markaasaan idiin sheegay rumaanku waa 3 nooc buu ahaa. marka waxa weeyaan kii dhexdhexaadkii, kii aad mid yar dhanaan iyo mid aad u macaan. marka maasha allah aad markuu casiyay mar kasta wuu kasii fiican yahay aad markuu casiyay. marka insha allah maadaama ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku sheegay aayadda qur-aankan cajaladii hore kaga soo hadlay fiihimaa faakihatu wanaklu warumaanu, ilaahay subxaana wa tacaala yidhi. marka waxa weeyaan timirtii iyo rumaankan maanta bal isku darsanaynaa insha allah. ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ka dhiganaynaa casiir ayaan ka dhiganaynaa amba sharaab ayaan ka dhiganaynaa si aan u cabno. marka waxa weeyaan awood badan oo siiya wadnaha, ha laga faa'iideysto. waxa weeyaan maxaa la yidhahdaa beerka oo kale faa'iido badan buu leeyahay, aad baan uga soo hadlay. marka insha allah marka wuxuu kale uu caawinayaa beerku hadduu ku xanuunayo garaaca badan iyo xanuunka beerka. dad baa jira beerku subag markuu leeyahay aad u xanuunsada, beerkaas waxa weeyaan waa dejinayaa xanuunka haya beerka. oo dad badan waa laga soo saaraa, waa laga gooyaa. marka insha allah faa'iidooyin badan bay leeyahay. awood buu siinayaa wadnaha amba qalb. waxa weeyaan casiirku waxa weeyaan kale uu nadiifinayaa caloosha ayuu nadiifinayaa, ha laga faa'iideysto. beerka waa dejinayaa xanuunaha badan ee ku dhaca sida subag oo kale au ka clean gareyn amba ka nadiifinaya. marka laga faa'iideysto dad badan waxa weeyaan beer taxliishaas oo kale waa laga gooyaaba. marka insha allah balan ka faa'iideysano ina soo macneeya anigu sida aan idigu soo sheegay. waxa weeyaan garaac hadduu qofku leeyahay taana waa dejinayaa laabta hadday ku xanuunayso. waxa weeyaan dadka indhoogu huruud noqonayo amba jirkoogu huruud noqonayo, marka waxayaan garaacahayo kale rumaanku waa ka dawo. marka maanta danteenu waxa weeyaan maca qashirka amba qashra ayaa la yidhaha carabiga, laakiin waxa weeyaan diirkiisa waa dawo, macaanka ayuu ka dawaya diirkaa sare. marka calashaan waa mucjiso ilaahi subxaana wa tacaala, waxaba yaraatee la tuuraya ma jirto. waana ka faa'iideysan doonaa insha allah rumaankaasi. marka waxa weeyaan laakiin waxaa jirta waxyaalaha loo samaysanayo oo doona inaan ka sheekay, laakiin waxa weeyaan imika ahaan insha allah waqti maayo. rumaanka qashradiisa weeyaan masha allah mar kale aan ka hadli doonaa 200 gram ayaa la sheegayaa oo diirka rumaanka ah qofku hadduu xanuunsanayo. waxaa kale oo faa'iido u leeyahay haddii uu waxaa kale oo faa'iido u leeyahay madax xanuunka badan. qofku waxa weeyaan hadduu cabo madax xanuunka badan baa ka degaya. sharaabka casiirka rumaanka faa'iido badan buu leeyahay. hadduu madaxu aad ku xanuunayo waa kaa dejinaya. waxaa kale oo ku qoran diirkiisa waxa weeyaan la yar kariyo oo malab lagu daro, malabka lagu daro oo waxa weeyaan la mariyo meel haddii ay ku xanuunayso, meel haddii ay ku dilaacsan tahay amba nabar kugu yaalo waa daweynayaa. naburada haddii jirka maaragtay meel haddii wax kaa saro oo kale waa ka dawo. waa diirkiisa ayaan ka hadlayaa. marka waxa weeyaan haddii la yar kariyo rumaanka diirkiisa oo lagu daro malab lagu daro oo meesha la mariyo waa daweynaya. marka waa cajiib weeyaan. waxaa la isku daweyn jiray berigii hore, qarniyadii hore ayaa la isku daweyn jiray. marka wax dadkii hore ayaa ku daweyn jiray. marka insha allah aan ka faa'iideysano. halkan wuxuu leeyahay rumaanka diirkiisa 200 gram iyo nus kiilo maxaa la yidhahdaa ku qiyaasanaysid baasha oo garaama biyo ah waad isku daraysaa. biyahaasi iyo nus kiilo waxa weeyaan biyaha iyo waxaad isku daraysaa diirka rumaanka. markaad isku karisid qofka xanuunsanaya ayaa la siinayaa 3 jeer maalintii. waxa weeyaan qofka xanuunsanaya 3 malqaacadood ayaa la siinayaa, 3 jeer ayaa la siinayaa. waxa weeyaan amba subax, duhur iyo hameen 3 jeer ayaa la siinayaa qofka xanuunsanaya. marka insha allah bawaasiirta oo kale haddii waxa weeyaan bawaasiirtu waxa weeyaan marka ay dhiigayso waxa weeyaan waa ka dawo isaga qudhadiisa.
maxaa la yidhahdaa diirkiisu waa ka dawo qofka babaasiirta leh waa ka dawaysadna amba dad waxaa jira ilkaha dhiigayaan amba xanuun oo kale ay tahay taana waa ka dawo waxa weye haddaad ku luqluqatid iyo haddaad cabtidba insha allah waa kaade balaa lagu soo dhawaado insha allah haddii caloosha maaragtay dhibaata kaa haysato waad cabi kartaa subaxdii iyaad cabi kartaa iyo habeenkii markaad seexanaysid ay dhibaata caloosha ka hayso waxaan samaynaynaa sharaabka amba casiirka ayaanu samaynaa insha allah lagu soo dhawaado asxaabay waxaan rabaa in aan jarjaro amba inaan gogoyo insha allah wakaasi wakaa maasha allah wakaa rumaankii insha allah waxa weeyaan aad buu macaan yahay insha allah biyaasaa uga daaya maasha allah kaasi asxaabay wakaa rumaankii insha allah wakaa lagu soo dhawaado rumaankii wakaasi maasha allah quruxdaasuu leeyahay waxaan rabnaa intiisa insha allah inaan gurno oo radaqano insha allah oo la cabo lagu soo dhawaado insha allah asxaabay wakaa rumaankii waan ka soo saaray deerkiisii maasha allah kii casaa wax badan ayaa ku jira biyo badan ayuu leeyahay baashii oo dhan buu biyo ka dhigay maasha allah midba midku kasii casi oo ka biyo badan yahay maasha allah labada kalena insha allah barnaamij kale ayaan ka samayn doonaa aada u qurux badan waxaan iska daadinaynana ma jirto qashradiisa amba diirkiisa isagana waxaan rabaa in maxaa la yidhahdaa caankaa loo cabaa marka insha allah barnaamij baan kasoo diyaarin doonaa insha allah oo lagu soo dhawaado casiirkaan ka dhigaynaa waka rumaankii maasha allah haddii la doono waxaa lagu samaysan karaa salaadka ayaa lagu duldaadsan karaa marka saladka la cunayo waa rumaanka waa lagu duldaadsan karaa saasaa loo cuni karaa sidan waad u cuni kartaa insha allah markaa laga faa'iidaysto faa'iidooyin badan ayuu leeyahay insha allah asxaabay wakaa diirkiisii insha allah wakaasi insha allah waan isagana waan ka shaqayn doonaa waan nila socodsiin doonaa isagana insha allah faa'iidada uu leeyahay marka laakiin imika waxaanu samaynaa insha allah casiirkii iyo 3 xabadood oo timira insha allah ha lagu soo dhawaado insha allah wakaasi rumaankii iyo timirtii insha allah sharaabkana insha allah samaynaa haddii la yidhaahdo biyo badan ayaa ku jira waxaa kaasi saladkaa lagu cuni karaa sidiisa waad u cuni kartaa insha allah sonkor yar haddaad ku darsatid maasha allah faa'iido badan baad ka helaysaa beerku dawo u yahay laabta hadday ku xanuunayso cunuhu hadduu ka xanuunayo codku hadduu kaa xiran yahay xanuunadan oo kale waxaa la yidhahdaa wadanka ku jira marka insha allah xanuunadaasoo dhan buu ka dawo yahay wax kaste waxa weyaan ilaahi subxaana watacaala waa midhihii jannada waswaaska ayuu ka dawo yahay marka faa'iidooyin badan buu leeyahay marka laga faa'iidaysto rumaanka maca saliidiisa rumaanka saliidiisa jirta marka tanna insha allah marka dambe inooga sheekin doono sharaabka inoo soo diyaarinaya asxaabay marka insha allah makiinadan ku ridqayaa saasaad ugu guraysaa insha allah biyo badan weeyaan 2 koob oo biyo aad ku shuban amba koob quraad ku shuban kartaa kolba intii qof ii cabisa isaguna biyo badan buu leeyahay insha allah wakaasi xabad baan sameeyey laakiin insha allah dadku hadday reerku badan yihiin waa samaysan karaan 2 hal 3 hal qofkuna xabad waa cuni karaa sidaan u iri muraha jannada weeyaan ma laga faa'iidaysto insha allah
asxaabay wakaa saddex xabo timir aan ku darsanayaa insha allah sharaabka amba casiirka waad arki doontaa. asxaabay wakaasi insha allah sharaabkii wakaa amba casiirkii rumaankaan soo ridqanay. marka ha laga faa'iidaysto caafimaadka. waxa weeyaan caafimaadku asixa oo faa'iido badan in laga faa'iidaysto oo la ilaaliyo caafimaadka weeyaan. kelmadii aan soo weydiiyeyna liverka ma aha waa beerka, laakiin tan waxa weeyaan beeryaradaan u malaynayaa. idinkana fikirkiina kasoo dhiibta insha allah, kana faa'iidaysta oo waxa weeyaan rumaankaasi ha laga faa'iidaysto. wakaasi maasha allah koobka rumaanka xabadii koob iyo 2 koob ayay noqotay. marka ha laga faa'iidaysto xabadu maasha allah. haddii biyo badan lagu darana waa fiican tahay, laakiin insha allah aniga beer baan ku darsaday. maasha allah sharaabkaasuu noqday. ha laga faa'iidaysto, casiirka la cabo, caafimaadka laga shaqeeyo. asxaabay qofkii rabaa saasuu ku cabi karaa, waa macaan weeyaan. laakiin qofkii aad ka u jecel macaankana sonkor waa ku darsan karaa, malqaacad sonkor ku darsan karaa. marka amba malab baad ku darsan kartaa, si aliyasaad jeceshahay adigu. laakiin maasha allah saasuu ku macaan yahayba. kusoo dhawaada janaalkana insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. insha allah next time insha allah kulan dambe insha allah.